Assalaamu calaykum caruurey. Sheeko cusub ayaan baranaynaa maanta. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa Yaxaaskii Anaaniga ahaa. Sidan ayaynu ku bilaabanaysaa. Meel aad u fog oo duurka ah oo webi ku yaalo ayaa waxaa ku noolaa yaxaas aad u weynaa. Yaxaaskaas ayaa wuxuu ahaa yaxaas anaani ah oo naftiisa oo kaliya ka fikiri jiray. Ma uu ogolaan jirin xayawaanada kale oo duurka ku noolaa oo dhan inay webiga agtiisa imaadaan ama ay ku qabaystaan. Wuxuu aaminsanaa webiga inuu asaga leeyahay oo xayawaanada kale oo dhan mamnuuc ay ka tahay inay imaadaan oo ay cabaan biyaha. Maalin walba wuxuu ku qayrin jiray xayawaan walba oo ku soo dhawaaday webiga agtiisa, asagoo lahaa ka leexda ama ha u soo dhawaanina webiga agtiisa, waa webigayga. Haddaa u soo dhawaatiin ama agtiisa imaateen webigan, waa idin cuni doonaa kulligiina. Maadaama yaxaaskii saas uu ku dhawaaqay, ayaa webigii waxaa ka haajiray wixii malaay oo ku noolaa ama kalluun, wixii rake ama rah oo ku noolaa, carsaanyo ama argoosato, iyo nooc walba oo malaay ah, iyo xayawaan walba oo duurka ku noolaa ayaa waxay ka haajireen webigii. Dhammaan waxay ka cabsanayeen in yaxaaskaas uu cuno ama uu liqo. Xayawaanadii ku noolaa duurka oo dhan webiga qof u dhawaan jiray ma lahayn. Mar walba oo oon uu qabto, waxay u safri jireen meel aad iyo aad u fog, ayagoo raadinaya meel il biyo ah ama durdur ama war biyood oo biyo ay ka buuxaan si ay u noolaadaan. Maalin walbo yaxaaska marna wuxuu ku seexan jiray dhabarkiisa, marna hororay u seexan jiray asagoo qoraxda seexanaya oo keligiisa ku baashaalaya webiga. Wuxuu sidoo kale soo qaadan jiray geed yar ama istakiin yar oo ilkihiisa uu ku nadiifsan jiray. Laakiin maalmaha ka mid ah, waqti hore oo subaxdii ayaa xayawaanadii oo dhan waxaa soo wada kiciyey qaylo ama taahid ama oohin aad u weyn. Xanuun daran qof uu hayo oo kale ayaa qayladaas u soo yeertay. Xayawaanadii oo dhan ayaa waxay u maleeyeen in yaxaaska uu qabsaday xayawaan oo uu cunayo. Laakiin subaxdii ama barqadii markii qoraxdii si fiican ay u soo baxday, ayaa waxay arkeen in waxa qaylinaya oo ooynaya uu yahay yaxaaskii weynaa oo xanuun daran uu hayo. Dhabarkiis ayuu u jiifay. Wuxuu sidoo kale gacantiisa ku hayay daankiisa oo bararsan. Aad ayuu u oynayay. Ilin badan indhihiisa way ka daadanaysay. Xayawaanadii oo dhan ayaa u soo dhawaaday webigii. Laakiin agtiisa qof u dhawaanaya ma lahan. Sababtoo ah yaa u dhawaanaya, adigu u dhawaan lahayd? Ma u malaynayo. Laakiin qaar ka mid ah xayawaanadii ka xumaaday oo aad ay ugu xumaadeen xaaladda uu ku sugnaa yaxaaskii. Deeradii ayaa waxay weydiisay, maxaa kugu dhacay oo la oonaysaa? Dabagaale ama uunrees meesha taagna ayaa wuxuu yidhi, ma ogi wallaahi waxa ku dhacay xayawaankan maanta. Yaxaaska waxuu la oonayo qof og maanta ma lahan. Waxaan u malaynaya inuu dhiman doono ayaa waxaa ku soo qaylisay shimbir yar oo geedka saarneed. Haddii taas ay dhacdo, kulligeena webiga ayaan aadi doonaa, si fiican ayaan biyaha ugu soo dhargi doonaa, waan ku dabaalan doonaa ayaa waxaa yidhi ida yar oo meesha joogay. Xayawaanadii aad ay arrintii ugu fikireen. Kuwa qaar waxay ka soo laalaadeen geedaha, kuwa qaar waxay ka soo laaleen saarka oo canabka, kuwa qaar hoos ay shuxshuxshuxshuux u qaylinayeen ama ku guuxayeen. Madaxood ay saas u wareejinayeen ayagoo fiirinaya ama fiirsanaya yaxaaskan weyn oo xanuunka daran uu hayo. Laakiin qof agtiisa ku dhawaaday ma lahan, sababtoo ah kulligood way cabsanayeen. Hal mar ayaa meesha waxaa ka soo muuqday dooli yar. Dooligaasoo ordaya kadib ayaa wuxuu fuulay yaxaaska dibkiisa. Haddana wuxuu dul socday yaxaaskii calooshiisa ayuu dul socday. Xayawaanadii oo dhan hal mar ayay indhahooda wada taageen ayagoo yaaban. Daanyeer meesha jooga ayaa wuxuu ku qayliyey, fiiri dooligaas. Waa laba midkood oo keliya. Dooligaas waa dooli waalan oo madaxa loogu jiro, ama waa dooli aad geesi u ah. Si dhab ah waxaan u ogahay in la cuni doono ayaa waxaa tiri abeeso meesha taagneed. Dooligii ayaa socday oo wuxuu dhex galay yaxaaskii afkiisa. Ilkihiisa ayuu ku tataagsanayay ama ka soo laalaaday. Hal mar ayay wada aamuseen xayawaanadii oo dhan oo duurka joogay. Dooligii ayaa wuxuu soo qabtay hal shay oo ku dhex jiray yaxaaska afkiisa. Waa soo jiiday oo jiiday oo jiiday. Kadibna markii uu ka soo saaray afkiisa ayaa wuxuu ku soo xambaaray garabkiisa. Hal mar ayaa waxaa wada qayliyey oo u sacbiyey xayawaanadii oo dhan oo duurka taagnaa. Way la yaabeen oo la fajaceen waxay meesha ka dhacay. Yaxaaskii ayaa soo fariistay. Markaasaa wuxuu yidhi waa i daayay. Kadibna wuxuu arkay dooli calooshiisa ku socda
oo xambaarsan ilig weyn oo garabkiisa ku xambaarsan. markaasaa dooligii wuxuu ku yidhi, waxa xanuunka kuu hayay waxay ahayd iligtaada ayaa jabtay oo xanuunkaas kuu keentay. kadib ayaa wuxuu soo jeestay yaxaaskii oo dhoola caddaynayay, wuxuuna ku yidhi, iligtaada ma ku siinayaa ma rabtaa? yaxaaskii ayaa wuxuu yidhi, may iga leexa iga qaad ma rabi xanuunkaas inuu igu soo laabto. laakiin wuxuu yidhi, markaa ka soo takhallustid ii soo laabo. dooligii ayaa baxay oo soo aasay iligtii. kadibna wuxuu usoo laabtay yaxaaskii oo indha caddaynaya. markaas ayaa wuxuu siiyey hal loos oo aad u weynaa. yaxaaskii ayaa wuxuu fiirsanayay dooligii oo cunaya looskii. markaasaa wuxuu ku yidhi, waxaad tahay dooli oo aad xariif u ah, maadaama aad iga saartay ama iga joojisay xanuunkii iligta igu haysay. sidoo kale waxaad tahay dooli naxariis badan. aad iyo aad u mahadsan tahay. abaalkaa wax aan ku gudaayo ma aqaano, laakiin maxaan samayn doonaa haddii xanuunkii uu igu soo laabto? haddii mar kale iligta xanuunkeed ugu soo laabto, aniga maxaan samayn doonaa? dooligii ayaa wuxuu ku jawaabay, waxba ha ka murgin, anigaa ku caawin doona oo iligta kaa saari doona haddii xanuun uu kugu soo laabto, asagoo googoosanaya looskiisa. muddo yar kadib ayaa dooligii iyo yaxaaskii waxay noqdeen saaxiibo aad iskugu dhow. maalin maalmaha ka mid ahane, yaxaaskii ayaa wuxuu warqad u diray xayawaanadii duurka ku noolaa oo dhan. markaasu wuxuu ku yidhi, kulligiina waad imaan kartaan webiga imaada, ku qabaysta oo biyaha caba. aniga hadda kadib qof aan dhibaato u geysan doono ma jiro. kulligeena wuu naga dhexeeyaa webiga, wuuna nagu filan yahay oo wada qaybsan karnaa. xayawaanadii oo dhan ayaa ku soo laabtay webigii oo cabay biyihii oo si fiican ugu qabaystay ayagoo aan ka xabsanaynin yaxaaskii. inkastoo yaxaaska uu mararka qaar uu xanaaq muujin jiray, waxay garteen ama barteen inay tahay dabeecaddiisa, oo waxay barteen inay si nabad ah ku noolaadaan. wax yar kadib ayaa waxaa ka soo buuxsamay webigii malaay ama kalluun badan, rake tiro badan ama rah tiro badan. carsaanyo ayaa soo gashay, aargoosato iyo malaayiin nooc oo malaay ama kalluun kala duwan. xayawaanadii oo dhan waxay ku noolaadeen si nabad ah. carruurey, sheekadan waxaan ku baranaynaa in nolosha adduunka waxyaalaha dadka badankood ay iskaga hor imaadaan ama aysan ku heshiinaynin inay tahay cabsi ay kala qabaan, taasoo keenaysa dadka inay is-aamini waayaan, oo keenta in dadka qaar ay wax buursadaan ama wax badsadaan. sidoo kale waxayna baraysaa in loo raxmado qofkii dhibaataysan, xataa haddii uu yahay qof xun. waxay sidoo kalena baraysaa in qofkii xun uu isbedeli karo, oo haddii qofka xumaan lagu bartay ma ahan in weligiisa oo xumaantaas uu lahaan doono, ama ay tahay in xumaantii uu lahaan jiray in maantao dhan lagu sheego oo lagu caayo. oo qofkii xumaan lagu bartay ayaa wuxuu isku bedeli karaa qof fiican inuu yahay, qof naxariis leh inuu yahay qof deeqsi ah oo dadka wax walba la qaybsada. carruuray, sheekadan meeshan ay noogu eg tahay. ilaa sheekada dambe aan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum.